xogayaha dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaridka ah ee Ucid Mubaarak Axmed Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe oo xisbiga Ucid ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu tilmaamay in 10kii sano ee xukuumadihii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye ay hoggaanka u hayeen Soomaaliland ay godmadow ku rideen rajadii shacabka isla markaasina aan la garan karahaynin meel ay xukuumadda kulmiye ee waqti xaadirkani haysta talada Soomaaliland ay bulshada u wado aan dibidin xasuusiyo taariikh aan fogeyn laakiin laga yaabo in la hilmaamay ama la ilaabay waa 17 November 2017 oo ahayd maalintii doorashada amba isbedelka siyaasadeed oo ka dhacay guud ahaan Soomaaliland waa maalin ku santanayd inuu isbedel maamul oo tagan ka dhacay guud ahaan Soomaaliland tartan tacab badan loo huray maal iyo muruqba lahaa ayaa dhammaan bulshada ku bixisay sidii codkooda ugu bedeli lahaayeen maamulkii muddo dhaafka ahaa ee xaalkiisa laga dayrinayay ee kulmiyihii hore bulshadu waxay filayeen in ay jirto amba ay lahaayeen rajo ay marun ku heli doonaan maamul ay ku hodmaan oo ku haga dariiqa suuban 8 sano oo haddii si dhab ah loo qiimeeyo amba loo xisaabiyo aan la garan karin xaaladii dalku uu ku jiray haddana qalbi wanaagsan iyo isku xidhnaanta bulshadu aad buu u sareeyay sidii dhaqanka u ahaydna waxay weheshanayeen samir iyo dulqaad 2 sano iyo dheeraad ayaa laga joogaa isbedelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay oo wali la garan karin meel loo socdo waa 10 sanadood oo kulmiyihii amba labadii kulmiye ee kala dambeeyay ay dalka hogaaminayeen ayaa su'aalaha la isweydiinayaa walina aan jawaab loo haynin adduunka aynu ku nool nahay ma jirto lagamana soo helayo ummad aan lahayn ujeedo ay u nool yihiin iyo meel ay hiigsanayaan bal u fiirso dibna u akhri taariikhda quruxda badan ee wadamada aynu hiigsanayno qaar ka mid ah oo dhul ahaan iyo khayraad ahaanba aynu ka hodansannahay intooda badan waa Singapore oo waxa ugu yar ee aan idinka sheegi karaa ay tahay in aan ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu siinin amba aanay haysaninba biyo nadiif ah oo ay cabaan hadda khayraad kalena hadalkiisa badaa taa bedelkeeda waxay ka mid noqdeen adduunyada koowaad haddii hogaamiyaheenu uu ina aaminsiiyey amba uu inoo sheegay in nolosha iyo horumarku uu ku xidhan yahay ictiraaf Taiwan ayaa tusaale u ah oo aan aqoonsi ilaa hadda ka haysan adduunka haddana wax soo saarkeeda iyo sida ay u nooshahay oo ayada adduunku u baahan yahay hoggaan suuban oo hami iyo hiigsi xor ah leh hoggaan suuban oo hami iyo hiigsi leh oo xor ka ah ee cadaalad darro iyo musuqmaasuq ayaa talada u qabtay bulshooyinka labada dal barwaaqo iyo baraarana u horseeday xukuumadda kulmiye amba labadii xukuumadood ee kulmiye u dambeeyayna hogaaminayay lama garanayo meel ay bulshada ku wado mana muuqato aragti iyo ujeeddo ay ka leeyihiin isbedelada geeska iyo kuwa adduunka ka socda intaba isla xisaabtan ku salaysan aqoon iyo ka mid dhalinta hadaf iyo ujeeddo aynu hiigsanayno isagana hadalkiisa daa sababtuna waxa maqan wixii la doonayay dhinaca kalena xogayaha dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaridka ah ee Ucid waxa uu ku canaantay dhalinyarada Soomaaliland in iyaga laftoodu ay qayb ka ahaayeen dib u dhac uu sheegay inuu ku yimid 10kii sano ee xukuumadihii kulmiye ay u kala dambeeyeen talada Soomaaliland amba dhalinyarada qudhoodu waxa la kala garanayn waxay doonayaan iyo waxay diidayaan waxaanay awoodoodii ay muuqan weyday markii qabiil iyo qoloqolo ay kala noqdeen halganadii bal hadda waxa dib u eegtaan halganadii ummadda reer Soomaaliland ay soo gashay raggii hor kacay dhalinyaro ayay haayeen ufo dib u xusuuso iyo xabsigii iyo jirdilkii ay galeen la kulmeen halgankii hubaysnaa ee Maxamed Siyaad Barre la galay ee AK47 lagaga hortagay raggii degta saartay ee kaga hortagay waxay haayeen dhalinyaro dhidar kuba xabaalaha kuma dhaadhaceenoo kuma dhiiradeen ruux celin kara dhawaaqee markuu meydka dhiiliye dhaqdhaqaaq ka waayo hore ugu dhawaadaa murti Soomaaliyeed ayaa ahayd laba walba is saaro laba toogo isma saarin ma filaynin xiriirka iyo sacaylka bulshada Soomaaliland iyo noloshooda ayaa madaxweyne Muuse
xal u waayi doonaa. sidoo kalena xogaya mubaarig waxa uu dhaliilay qaabka ay xukuumadda Somaliland ugu diyaar garowday ka hortagga cudurkan dilaaga ah ee COVID-19. maanta waxa xaaladayna hor taalla oo ah COVID-19 amba caabuqa COVID-19 oo ah xanuun adduunyada aad dhibaato u geystay iyo sida aynu inagu u maamulay iyo maamul xumada ka muuqata ayaa tusaale u ah tamarteena iyo taagteena. qiyaastii intii aynu la soo noqonnay madaxbannaanideena waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee muxuu ahaayey dalkeenu soo maray. taasi waxayna tusaysaa tamarta aynu leenahay diyaargarowgeenna haddii waxaan wax ka badan ay imaadaan ayay tusaale u tahay sidii aynu u maamuli lahayn. bal waxaad eegtaa macallimiinta cabanaya ee bilaa mushaharka ah ee xanuunkani saameynta ku yeeshay. taas ayaduna laftarkeedu waxay tusaale u tahay oo inoo caddaynaysaa in aynaan ka fikirayn tallaabooyinka aynu qaadayno ambaba hore aynaan uga soo fikirin sida xaalku noqon doono haddii ay dhibaato timaado. suuqyada magaalada haddii aad soo booqato ood ayagana u kuur gasho waxaad arkaysaa xaalad aad uga duwan maanta lagu jiro oo ah in ay sidii hore ee bulshadu ay u badka qabtay ay wax kastaaba iskaga socdaan. taa macnaheedu waxa weeye in xukuumaddu ay noqotay wartabiye inoo soo tabinaya maalin walba intii dhimatay iyo inta xanuunku ku kordhay. xukuumadda intaa in ka badan baa looga fadhiyaa. waxaa looga fadhiyaa inaanay u fikirin sida dadka caadiga waayo mas-uuliyad baa saaran, hogaamin bay hayaan. sida dadka kale ay u fikirayaan ama bulshadu u fikiraysa si ka duwan inay u fikirto ayaa hor taalla. waana waxyaabaha lagu garto hogaaminta iyo leadershipka ahmiyadda uu leeyahay. ugu dambeyntii xogayaha dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID waxa uu walaac xooggan ka muujiyey mushahar la'aan soo food saartay shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. waxaad arkaysaa shaqaalihii oo aad u cabanaya. ceeb ayay ku tahay qof kasta oo mas-uula qof shaqaalihii maanta inuu cawdo oo weliba ka cawdo mushahar la'aan. shalay toole aba 18 May maayirka ayaa deeq bixinayay oxygen ah. way fiican tahay wixii la wada qabanaya in la wada qabsado, laakiin taa macnaheedu ma waxa weeye in uu baahidii isaga mas-uulka looga dhigay uu ka fargareeyay uu daboolay. may shalay wiigii ugu dambeeyay baynu arkaynaa intaas oo shaqaale oo muruqmaala oo cabanaya oo ka cabanaya mushahar la'aan. markaa isla xisaabtan ayaynu u baahannahay, dhaba dowladnimo dhaba ayaynu u baahannahay. waxaynu u baahannahay in qof kastaaba waajibkiisa iyo halka kaalinta uu kaga jiro bulshada uu ka soo baxo. Dirsooc iyo Ibraahim Garle, anigu dadaalkayga markaan dayo umuurtayda daacadow laxdeedana daraley ku socotaa. xaalkeenu waxa weeye haddii aynaan dowladnimada iyo muxuu ahaayey shuruucda iyo maamulka aynaan ilaashan in arrimaheenu ay noqdaan qaar iska socda. Cabdijabbaar Maxamed Xuseen, Telefishinka Real Hargeysa.